waxaan soo gaarnay tobankii dambe ee bisha Ramadaan. Ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iska leh oo ku amaanan inuu ina soo gaarsiiyey nabad iyo caafimaad iyo khayraad badan. Ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu soo gaarsiiyey allahaasi tabaaraka wa tacaala waa mahadsan yahay. isagaan weydiisanaynaa inuu bisha inoo dhammaystiro oo khayr iyo wanaag ilaahay noogu dhammaystiro ina waafajiyo. waa fursad ilaahay uu nasiiyey subxaanahu wa tacaala oo ay tahay inaynu ka faa'iidaysanno. saddex arrimood ayaa muhiima inaynu ku dadaalno: waa qur'aan iyo qiyaam iyo siyaam. waynu wadnay horeba waynuu wadnay, laakiin waa xoojinaynaa. haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa? muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadkoo dhan. yacni tobankani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadkoo dhan intiisa kale. بخاري مسلم بايقنا عائشة وحي كسورين رضي الله تعالى عنها إنتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. طبعا كهبيني وقدم بير رمضان مركز صوت قالان إبي الأوضان النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره قنتي أيوب جيتي سنشري. waxay culimadu ku fasireen in loola jeedo in nabigu sallallahu alayhi wasallam cibaadada Alle habeenadaasi uu ku dadaali jiray. marka nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dadaali jiray isla markaasi waxay Aisha tiri wa ahya layla, habeenkiisina uu nooleyn jiray. muxuu habeenka ku nooleyn jiray? bidhikri waddu'aa'i was-salaati wa ghayriha min anwa' al-ibadat. رواية كلا الصحيحين كتمت من حديث عائشة وحي لها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما تبنك بشهر رمضان قدام بيسمر كي سوق له النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وحسمين تري سدح الموت. الحديث يقول كذا شد مئزره قنتقو أتكي سنشري وأحيا ليلة هبين كي سنة ونولين تري وأيقظ أهله أهل كيسي حاسس كي سنوات كحين شري. إن أهل كلا براروجية أو عبادة لو توسيو سيد الرسول كسمين شري صلى الله عليه وسلم سيقول كنت قوات كي سنة أهل كنوات توسيني سي أي خير كأولو ذاقان وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عائشة وحي لها النبي عليه الصلاة والسلام تبكن عبادة هذا يصوغ قلان guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray. halkay Soomaalidu tiraahdo guntigu adkaysan jiray, habeenkiisana wuu noolayn jiray, reerkiisana wuu toosin jiray bay Caaisha leedahay. wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam tobankaa habeenee ugu dambeeya bisha ramadaan mid dadaala si aan u dadaalin sanadka intiisa kale oo dhan. idan tobankan habeen wuxuu qofka muslimkii u baahan yahay awood wuxuu leeyahay oo dhan iyo raganimo iyo tamar iyo xoogba inaad isugu geyso tobankaa habeen cibaadadooda. nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi tobankan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin wakhtiyada kale. wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale. dadaal siyaada ah oo laban oo aad u korsan ayuu nabigu la imaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sababtu waxa weeye tobankan dambe waxaa la dhihi karaa waa bisha lafdhabarteedii wey, dhuuxii wey, meeshii ugu muhiimsanayd bisha wey. waxaa ku jira habeenkii laylatulqadriga ahayd sida nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. waxaad ka raadisaan buu yidhi tobanka dambe ee bisha
haddana habeenada tirada isdheer حري رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام بشان واتني دين تمي وفيه ليلة خير من 1000 شهر بشان وحاكم ذو كتير تهبي كن بلاد كخير بدن عملك للسمية عمل كن بلاد للسمية وكخير بدن يهي من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجه بإسناد حسن حري النبي عليه الصلاة والسلام قفك هبينك خير كيسك قضاء ربهان وامد قضاء وخساري هبين كان خير كيس وحاك قضاء وقراء قف حمانتي سو إلهي كفو قيسي سبحانه وتعالى وإلهي وكايستي توفيق دي وافتشنتي خنوننتي هي توسنتي ولا يحرم خيرها إلا محروم كما يا كفر أحسن يا عباد الله ورالك أين كم من نغضه كوا نوشيغ نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنيهم كوا محرومين وخير ودنك قضي وهبينك بشا كتيرا قيمها بدن خير كيدك قضي. عائشة رضي الله عنها وحي كتر الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هدي إلهي هبينك الليلة القدر إلى كل ميوه محان إراحضة سؤال عدل وعكور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عائشة waxaad tidhaahdaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala kula kulmiyo allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii dheh allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii ducada aqri idinkana waxaan idinka codsan qof walbow inaad dadka muslimiinta iska cafido si ilaahay subxaana wa tacaala adigana kuu cafiyo ducadaasna carabkeennu ha la qabsado habeen walbana yayna ku dhaafin inaad ilaahay subxaana wa tacaala weydiisato si aad dardaarankii rasuulku uu siiyey qofkuu adduunka ugu jeclaa oo xaaskiisa caaisho ahayd aan innaguna u helo allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم